goor dambe oo galabtaasi guula kusoo gabagaboobay xuska maalinta xasuuqa shacabka Soomaalida Ogaadenya oo sanad walba la xuso 22 bisha February oo ay jawxa u asteysay xusuusta shacabka Soomaalida Ogaadenya oo ay xasuuqyaan kala joogsi lahayn ku socdeen muddo aad u dheer xuskan oo si meeqaam sare leh loo soo agaasimay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sareysa jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya toddobayaashii qalabka siday kaadirka jawxo ee ku sugan magaalada Jigjiga xubnaha gobolka Faafan taageerayaasha shacab u tiro badan xuskan oo lagu furaayada kamid ah Quraanka Kariimka iyo wacdi diini ah oo dhalaaliyo qulubta dadkii kulanka soo xaadira ayaa ka qabsoomay xafiiska jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ee magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan xuskan oo laga soo jeediyay khudbada taariikhi ah oo aad u qiiro galiyay bulshada kulanka soo xaadira ayaa looga sheekeeyay xasuuqyadii ka dhacay Ogaadenya iyo tacadiyadii xukuumadihii kala dambeeyay Itoobiya ka geysteen Ogaadenya dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka jawxo halgamad Daahir Maxamed Cali Daahir Baasto oo xubnaha u jeediyay khudbad dhaxal gal ah ayaa isna dhankiisa xusay qabad falladii iyo xasuuqyadii Itoobiya ka geysatay Ogaadenya wuxuuna si gaar ah u dul istaagay hagardaamooyinkii goobjooga ka ahaa khudbadahan oo dhammaystiran goor dhow kala soco wakaaladda wararka Ogaadenya oo ana iyo muuqaalo dheeraad